warheesta suldaan sayraar ee la dhaho 275 macnaheeda moogsantahay acuudu billaahi min ashaytaan rajiim soo dhawaada waxaan rabaa inaan idiin sharaxo heesta eraya ku jiro iyo fiidiyowga iyo numberkan 275 macnaha waxa ay tahay okay numberka ku bilaawno horta numberkan caalamka adduunka waxa looga yaqaanaa number qarsoon oo ay leeyihiin kooxda numanadiska la leeyahay numberkan labaad ee la leeyahay 2 waxa waaye macnaheeda shaqo ayaa lagu diray lagu tijaabinayaa shaqadaas sida u gudan lahayd isaa kaga soo bixi lahayd shaqadaas markii aad soo gudatid lambar 7 ayaa lagu siinayaa lambar 7 macnaheeda waxay tahay waqti xaadirkan waa lagu aaminay conform ayaa lagu siiyay nin shaqadiisa soo qabsaday ee si fiican u soo gutay shaqadiisa ee aan laga shakisaneen ayaa tahay lambar 5 ah ku saarta marka lambar 5 ballanqaad ayaa lagu sameeyay oo ah shaqa lagu diray waad ka soo baxday waa lagu aaminsan yahay xibin naga mid ah ayaa tahay waqti xaadirkan waxa ku siinayna ballanqaad magacaaga heer sare ayaan gaarsiinaa tii lacag aheedna waa ku siinaa shacbiyadna anaga ku sameynayno erayga saxda waa kaas okay aan u soo laabana heesta meesha dhageysta meesha heesta fiiri video wuxuu ku bilaabanayo fiiri cunug yiriisa oo ordaayo irid hor istaagayo warqad loo dhiibay ka bacdina laabanayo iyo asaga dhar madow wato koofi madow u xiran tahay sii jeedo sii socdo maxay ka dhiganta marka waa sheekhi waay macnaha cunuga soo siiyay shahaadadii wuuna la orday ma fahmaysaa waa faraxsan yahay ninkaana magaalada soo sii galay dhar madowna waa xiran yahay haddana heesta waxaa ku jiro meel biyo ka soo daadanayaan dhar madow soo xiran biyo ay ku kor socdaan biyo lagu kor daadanayo macnaheeda ma taqaanaa biyaha soo daadanayo macnaheeda ma taqaanaa ku qor tiktok ku qor ama google ku soo ogow ayadana okay suldaan sayraar wuxuu heestan wuxuu leeyahay erayada ku jira wuxuu leeyahay waa guusha nolosha tan aan ku gaaray aan ku garwaaqsaday hadda fahanyaa marka la weydiiyay heestan erayadan macnaha olojeedka waxa uu yahay lambarada loogu soo galiyay waxa uu yiri waa wiilay gabar isjecel qabiil ahaan la isku diiday ka bacdi la isku ogolaaday isguursadeen 27 bishii shanaad halkaas maxaa kaaga muuqdo laba qof oo ma kor la isku diiday dhibaatay galeen shaqadii koobaad waay ka bacdi familkiis ku soo laabtay waa laga soo heshiiyay meeshaas conform la bixiyay waa la proof gareey markaan waa la aaminay labadii qof maxaa ku soo haray way isguursadeen maxay gaareen guushii lahaayeen gaareen aniga marka hore maxaan kuugu soo macneeyay erayada labada sida saddexda number 2 number 7 iyo number 5 number 2 waxa waayaan ku dhahay qof shaqo loo diray ee tasti ahaan ama tijaab ahaan looga soo qaadayo number 7 shaqadiisa ayuu soo gutay oo si fiican ay uga soo baxay waqti xaadirkan waa la aaminay oo waxa la yiri waxa tahay xibin naga mid ah number 5 maxay tahay macnaheeda in sheegay waxa lagu ballanqaadiyo horumar ayaad gaaraysaa waaba eraygi oo macnaha loo macneeyo actin iyo gabar iyo wiil jecel maadaama Soomaali jecel waxa si jecel yihiin loo hoos galiyay la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wasallam war fiiriyabal waxa soo fiirsin dharka madow calaamadahooda ka mid yihiin falling water kan biyaha soo daadanayana calaamadahooda ka mid yihiin soo fiiriye lambarkana soo fiiriye YouTube ku qor Google ku qor TikTok ku qor any mataqaana search meel walba ku qor waa soo ogaanaysaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un aniga kolley ma dhahay suldaan sayraar kuma dambaabay uu kamid yahay ma ogsooni hooska si in lagu sameeyo laga yaabaa naftirkiisa inuu kamid yahay waa laga yaabaa Allahu a'lam ilaahay ga taas maartay iiga og waa idin salaamaya a'uudu billahi minash shaytaan